waxaan aad iyo aad uga duwanay guddiyadii hore in aan dhex dhignay ururada dhammaan ka ah lidka ka ah ama ka ah ururka ku midoobay inay fuliyaan. waxaa dhici jirta marar hore in ururada qaasa oo markaas magaalooyinka waaweyn ah inay kaliya fuliyaan, laakiin hadda ururada kasta oo ka tirsan dalladda IFSAN inay xaq u yeelato dadka degaankooda degan inay wax u qabato. urur kasta oo ka tirsan IFSAN wuxuu xaq u yeeshay inuu ugu yaraan sanadkii ilaa 4 mashruuc u fuliyo. waxaan si wanaaga oo aan rabaa inaan la wadaago in mashaariican sida loo qaban jiray sanadihii hore la soo dhaafay iyo sanadkan inay kala duwan yihiin. waxaan moodaa in IFSAN ay gaadhay inay ururada inay qabtaan mashaariicda naftooda oo lidka ka ah si ay u ogaadaan in baahida IFSAN ay ka timaado. waxaan aad hadeertaan anagoo ah ii sheeg guddiga dadaal badan kula jirnaa in ururada dalladda ay hoos yimaadaan inaan si daacada ugu qaybino, ayagoo dhan aan fursad siino inay sanadkiiba ugu yaraan 3 jeer oo kulan ay sameeyaan. kulan kastana uu leeyahay 3 qayb uu leeyahay. waxaan ku dadaalnaa sanadkan inaan 12 urur oo IFSAN oo daladdeeda hoos timaado ay badankood 90% ay ururada Soomaaliya ay yihiin, ay wacyigelintaas ay sameeyaan. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو عبد القادر علي نونة، أنا كترسن جودية دلادة IFSAN ودن كنا دلنا كديسان، وحن أن كقرب جلشير أي طبقابين جودية جالية دلادة IFSAN. سعد الله سعودان IFSAN وحي هاد بسولوات في صدر سنة جرسته دلادة IFSAN ودلاد يكون ديسيين إلا 6 أور أو Soomaaliya oo ka dhisan waddanka Holland. macnaheeduna ay tahay in Soomaalida ay isla wada yeeshaan si ay hal meel danahooda uga fuliyaan waddanka oo dhan. saad la socotaan guddiga 3 sanaba waxaa la doortay guddi. aniga waxaan ka mid ah guddiga hadda la soo doortay maamulkiisa ugu sarreeya. waxaan ugu marar badan dhacda guddiyada IFSAN waa dad ku shaqeeya iska xoqabso inay waqtigooda u horaan qaaliga ah inay u adeegaan ummadda Soomaaliyeed. marka guddiga sidiisaba wuxuu ku dhisan yahay ismaqal, wada tashi iyo wada fulin danaha ummadda Soomaaliyeed. saad la socotaa waddanka waxaa ku soo biiray dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaali ah, iyada laftigooda danahooda inaan ka shaqeyno, inaan si khaas u fiirino dadka Soomaaliyeed ee u baahan cadaalad ay helaan, u baahan inay la qabsadaan sidii ugu fudud ama shaqo ha noqoto ama sharci ha noqoto. waxaa hadda ay IFSAN ay heshay mashaariicdii awalba ay heli jirtay iyo qaar zaa'id ah. mashaariicdaas oo dhan oo ku saabsan sida maaragtay wacdigelinta ummadda Soomaaliyeed waddanka ku nool iyagoo oo dhaqankoodii diintooda haysta inay maaragtay ka qayb qaataan horumarinta bulshada Soomaalida. mashruucyadaas hadda waxaan aad iyo aad uga duwanay guddiyadii hore in aan dhex dhignay ururada dhammaan ka ah lidka ka ah ama ka ah ururka ku midoobay inay fuliyaan. waxaa dhici jirta marar hore in ururada qaasa oo markaas magaalooyinka waaweyn ah inay kaliya fuliyaan, laakiin hadda ururada kasta oo ka tirsan dalladda IFSAN inay xaq u yeelato dadka degaankooda degan inay wax u qabato. urur kasta oo ka tirsan IFSAN wuxuu xaq u yeeshay inuu ugu yaraan sanadkii ilaa 4 mashruuc u fuliyo. marka sidaa daraaddeed aad iyo aad xiriirka dadka iyo ururada ka tirsan dalladda ay aad iyo aad isu soo dhawaadeen. bismillaahi raxmaani raxiim. anoo ku hadlayo magaca guddiga IFSAN oo aan ka mid ahay magacaygu yahay Cali Amiin Ikar. waxaan rabaa maanta inaan sharaxaad buuxo ka dhiibo mashruuca socdo oo lagu magacaabo Frontline from Bini Out oo ka mid ah mashruucyada daladda IFSAN ay hadda ay daadiyenayso. mashruucaas oo aan aad iyo aad ugu dadaalna haddaan nahay guddiga, aan ka mid ahay komishinka guddiga garab la socdo. siiba waxaan ugu jiro Shakuur Cilmi, waxaana mashruuca ii sheeg hoggaanka ah shaqaale ka ah Zahra Naaleeye. waxaan aad hadeertaan anagoo ah ii sheeg guddiga dadaal badan kula jirnaa in ururada dalladda ay hoos yimaadaan inaan si daacada ugu qaybino, ayagoo dhan aan fursad siino inay sanadkiiba ugu yaraan 3 jeer oo kulan ay sameeyaan. kulan kastana uu leeyahay 3 qayb uu leeyahay.
waxaan ku dadaalnay sanadkan inaan 12 urur oo ifsan oo daladeeda hoos timaado ay badankood 90% ay ururada Soomaaliya ay yihiin ay wacyigelintaas ay sameeyaan waxaan jecelnahay mustaqbalka iyo guddiga mustaqbalka imaan doonaba inay naga dhaxlaan shaqadan wanaagsan oo cusub oo haddeertan aan keennay sida loo qabanayo iyo sida maxaa lahay loo socodsiin lahaa waxaan sanadkan anagoo ah ifsan iyo guddiga ka ah ifsan iyo commissionkeedaba dadaal ay ku samaysay ah in 12 urur oo ururkiiba uu qabto 3 kulan magaaladiisu ku qabto oo magaalooyin kala duwan lagu qabtay kulanadaas waxaan rabnaa sanadka soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo inay 12 urur oo ururkiiba 3 kulan uu qaban doono oo si daacad ah oo cadaalad ku jirto oo siman inaan ururada ifsan hoos imaanayo aan saas ugu qaybino aan jecelnahay waana rajaynaynaa in laga dhaxlo waana dadaalkaasna waana waa samayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa mudnaan weyn aan siinaynaa oo mahadcelin gaar ah u soo diraynaa annaga shaqaalaha ifsan ka shaqeeyey oo adeegaasna la qabtay haddaan nahay commissionka iyo ururadii dhab ahaan ee dadaalka sameeyey oo mid kastoo waajibkiisa ka soo baxay mudnaa iyo kartidiisa muujiyey si uu wacyigelin ballaaran ugu sameeyo mujtamaca Soomaalida ee waddankan Holland Netherlands ku nool. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Maxamed Cismaan Qure oo ka ah guddiga ifsaan maamulkiisa haya termaynkan hadda aan ku jirno sanadkan 2024 waxaa hadda gadaasheena ka dhammaaday shirkaan leen qiimeynta la qiimeyn lahaa sanad shaqadeedka aan soo qabanay ifsaan waxaan nasiib wanaag ahaa oo aan rabaa inaan la wadaago oo aan rabaa inaan caawa wargeliyo oo ah inaan qaybtiisa koowaad soo afjarnay sanadka 2024 mashaariicda sanadkan qabanaysa waxaa ka mid ahaa ifsaan mashruuc la yiraahdo FBO wuxuu lahaa 3 wajahaad ilaa 3 sano soconaya ilaa 4 sano waxaa sanadkan nasiib u yeeshay oo ay ku guuleysatay maamulka ifsaan iyo guddiga u qaabilsan FBO commissionka in sanadkan ay qabtaan 10 urur Soomaaliyeed oo ka tirsan ifsaan wajigiisa koowaad sanadka dambana soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo 10 kale inay qabato sanadka saddexaadna inay qabato 12 urur kale Soomaaliya waxaan nasiib wanaag ah oo aan rabaa inaan la wadaago in mashaariican sida loo qaban jiray sanadihii hore la soo dhaafay iyo sanadkan inay kala duwan yihiin waxaa moodaa in ifsaan ay gaadhay inay ururada inay qabtaan mashaariicda naftooda oo lidka ka ah si ay u ogaadaan in baahida ifsaan ay ka timaado dadka deegaanada gobollada degan inay soo gaadho wixii warbixin ku saabsan mashaariicda